waxaan rabaa inaan ka hadlo wax ay gaalada ka qiirootay oo madaxdeena ka hadli weysay. madaxdeena way ka hadli weysay, warqada la soo saaray, madaxdeedu waa loo hanjabay. Absolutely in madaxdeeda loo hanjabo waxaa keenay in mushaar la siiyo. madaxdeeda in loo hanjaba in mushaar la siiyo ay keenaysaa. inna loo hanjaba waxaa ka fiican in la amaano adduunku oo wax anaga naga soo doonto, laakiin in la yiraahdo ciidamadii koonfur galbeed lacagtii budgetkii ahayd mushaarkii waa laga jaraya oo Jarmalka iyo UK iyo waxa ka jaraya qaramada midoobay waa ka goosteen. in la yiraahdo aad baan uga xumahay, aad baan absolutely uga xumahay. waxaana taa keenays waxa weeyaan lacagta dadka nasiinay oo lacagtii nagu biilay waxay nagu dhaliilayaan shacabkooday laayaan shacabkooday xirxiraan bilaa micno. war nin wasiir amni koonfur galbeed ka tirsan inta idaacadiisa soo taagay wuxuu yiri waxa mudaaharaadaya gebigooda waa nabadiid al-shabaab weeye. absolutely weligay ma arkin ilmo yar oo saf inta la geliyay oo la isku daba taxay oo la gumaadayo la xaraantinayo qori caaradiisa afka lagu hayo. weligayga ma arkin dawlad gaal walaa muslim ka dhacayso sidaas ilaa kuwa mujrimiina mooyaane. marka ninkii waliid shacabka hortaagan ilmihii dhalinyarada ahaa caadifada dawlad jaceelka xorriyadda usoo baxay in la haraatiyo qori fiiqiisa madax loogu tubo indhaha laga xiro xaq uma lahan ciddii sidaa yeeshay. in waxa loo baahnaa madaxweyne Farmaajo ka qayliyo ka xanaaqo oo qofkaas xilka laga qaada loo baahnaa. bedelkeeda shacabkii waa la haraatiyay. 15 qof ayaa laga dilay. cid u tacsiideysay oo dawlad ah ma jirto. waxaanay ka xumaa waa taas. waxaan ka xumaay kuwa waxaan arkayo dhahay saaxiibada aad u mahadsantiin. waxaad dhahaysaan Allah u naxariisto laakiin saaxib meesha ma imaanayso. nin Soomaaliya tahay Ilaahay ka cabso, muwaadin baa tahay Ilaahay ka cabso. qofka dhiigiisa lama baraysan karo sida shabaabka aan u necebnahay ayaa u necbaa qof shacabkayga dilaayo. war aniga madaxweyne meehi, ra'iisul wasaare meehi, wasiir meehi, laakiin haddii awooddaas aan lahaa oo aan lahaa qadiyad ama awood yar igu jirto daqiiqad shacabkayga lama gomaadi lahay. wama adraaka marka adiga $300-400 bil lagu siiyo qof la dilay miyaad aad ka ahanaysaa oo aad ka hiilinaysaa? war aaway damiirkaaga goormeed bini aadam noqonaysaa? adduunka bini aadam leeyahay brother sister, adduunka bini aadamnimo ayaa jirto. adiga goormeed bini aadam noqonaysaa? kaliya dhunta miyaad u shaqaynaysaa? war 30 sanaad usoo shaqaynaysay, qabiil u shaqaysay, wax ku waysay, u shaqaysay saaxiibtinimo wax ku waysay, u shaqaysay mabda aad ku isku raacsantii wax waa ku waysay. brother ilaahay ka cabso rabbul kacba. ilaahay waa kula xisaabtami doonaa haddii aad tahay qof caqiido leh oo muslima oo bini aadanimo ku jirto oo wax yariis bini aadanimo kugu jirto. rabbul kacba oo lagu xisaabtami doonaa. war qofka dhiigiisa xalaal ma ahan. askarigii dilay lama eedeyn, lama daleecaynin, lama soo xirin. wallahi lama soo xirin, lama daleecaynin. 15 qof ay iska dileen magaalada iska joogaan. soo marka aawi dawladna matalaysa dawladda aanu qaylinayno xiiqeena anaga nabadii nolol gurbaama ka dhiganayna hees cusub hadda soo baxday maya nabadii nolosha ereygaas aad wadato waa inaad ka turjuntaa. waa inaad xanuun ku qabtaa. dawriyo oo qarax kula dhintay agagaarka madaxtooyada, qaraxii ku dhintay taxsiyada loo dhigay ilmihiisa madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha. 15 qof dhintay barambaramiya mo idaacada hataa ka hadlo dadkii dhintay Allah u naxariisto kuwii falkaas geystay waa xirina mawdhow. anaga maxaan nahay? shacabaan nahay, dareen baan leenahay. haddii qofka muctarif yahay yaqaano wariyaha ama mas'uulka yahay taxsiyada loo dhigaya. shacabka kan ugu yara xalay dhashayna waa shacab Soomaaliyeed. qiimo ayuu leeyahay walaalkayga. adigan ku doodaya, aniga cidna uma doodayo. aniga channelkayga akhri bini aadamkan u dooda, bini aadamka ayaan u dooda, khaasatan Soomaaliyan u dooda. xaqna waa u leeyahay. qofkii ugu nacayo qulli aniga waxa waaye inaad nacdo. waan jeclahay inaad nacdo oo afkaartayga aad dhaliisho iga soo horjeesto. waa ku faanaya. waa markii aad wax sax ku haysano wada sax, laakiin dhimasho haday soo gasho, xadgudub hadduu soo galo, bini aadam la caburiyo haday soo gasho, anigaad anti igu tahay, anigaad iga soo horjeedaa, waad i mucaaradaysaa. sidee afkaartaada ula dhacayo? aniga aan hadlayo waad iga soo horjeedaa, waxaad igaga soo horjeedaa. aniga ma ogolay shacabkayga in la laayo. adiga xataa in wax lagu yeelo ma jeceli. wallahi in adiga wax lagu yeelo ma jeceli.
in gabar Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed wadada lagu darbaaxayo askari qori ku fiiqa ma jecli aniga adiga hadda war hadii farmaajiye ma jecli nafsadeedan u horeeya waan difaaciyo wadankayga sideen marka dadka kale u difaacaynin war kan Hargeysa dhibka lagu gaarsiinayo Hargeysa uma nacibi Hargeysnimo uma nacibi qabiilka degan ma nacibi ee waxa ka hadlay waxa waaye mana lihi farmaajo ku soo biiri khayre waxa la Soomaali weyn ku soo biira Soomaali weyn walaalo ala noqono wax lagu faano waxa ah in walaalo noqdo la midoobo qadiyad sax laga wada hadlo qofkana uu naqlo uu aado qof mabda difaacay aysan noqonin qof shakhsi difaacay ama qof qabiil difaacay ama qof lacag difaacanaya weliga hormar ma gaaraysid ilaahay ku dhartay weliga wallahi hormar ma gaaraysid in Nicholas Haysom uu yiraahdo sababta Mansuur soo xirteen maxaa way oo yiraahdo 48 saacadood ka badan xabsi ku haysanay maxaa way war inuu sida ku bahdilo nin safiir ah oo qarmadooda ka socdo waxaan ayaga isku keenay sababtan isku keenay ku sheegaya waa ninkan waa nin muwaadin ah laakiin waxaan aad uga naxay markii Ethiopia soo xireen Ethiopia ba soo gabagabay soo harantii baga ka soo tumay ma jecli aniga qofkayga dambiilaha waxaan jeclahay anigana dambiga ka goosto wadankii ma wada hayno marna inaan 91 u noqono brothers waxa ka soo horjeedno waa 91 inaan noqono marrabno wada aragteen qabiilo ayaa isku dagaalay gobolada dhexe dadkii intay uu ka batay caadifadii iyo cadaadiska ka batay ayay qabiiladii kala taageerayeen social media wada aragteen hiblaayaha guuleysato hibilaha hal dhaco leeyahay yaa keenay waxa keenay maamulka shacabkiisa aan u hadlaynin war shacabka u hadlo shacabkiina dhaha hadii wax gaaraan u danqada annaga namatashaan hadii wax gaaraan noo hadlo hadii nala xumeeyo qofkina xumeeyo xiro hal shakhsi anaga oo Mansuur ma doodayno wiligiisa xirnaado laakiin dhibaatadii baydhabo ka dhacday ijaafadii ka dhacday shacabkii oo 500 iyo ku dhawaad soo baxay in xabsiyada la wada dhigo xaq ma aha taas shacabka baydhabo kaliya kama hadlaye shacab kasta xaq u leh inay rabitaankooda ka hadlaan shacab kasta xaq u leeyahay waxa loo baahnaa inaan awood loo adeegsan ee xikmad loo adeegsado aad u maasantiin aadan u jeclahay waan ka xumaayay haddii aad ka xumaanaysid waxaan sheegayo laakiin absolutely dawlad kama soo horjeedo waan jeclahay waxaan dareemayaa nidaamka dawliga inuu bilow u yahay aasaaska horumarka dawladnimada gaaridda mustaqbal wanaagsan himiladeena inaan gaarno aas waxa uu ah inaan dawladnimo helno oo jiritaan dawladeed helno waan ku faanayna dawladeena hadda jirta madaxweyne farmaajo hogaaminayo laakiin dawladda ma ahan macsuumiin ma aha dambi way geli karaan waxa wanaagsan in wax loo sheego anaga dhagax kuma tuurayno xabad kuma ridayno laakiin waa inay ixtiraamtaa nala hadasha qofkiina dhiba naga qabataa weeyaan war anaga hadii aad tiraadaan hebel ma rabno shacabka oo hadla laakiin hebel ma rabna dal shacabki waa rabna daleey shacabka ayaa ka awood badan dawladdu waa shacabka adduunka wada aragteen نفتخر بالدين نفتخر بالقوة نفتخر بالإسلام نحن الصومالي نفتخر بالدين نفتخر بالإسلام لا ننسى ما كنا 1991 حتى الآن قد دمرنا أساس الحياة واليوم جئنا حكومة تهدد شعبها وتستخدم قوات أجنبية لإسكات الحقيق. Today we are the power and we borrowed that we are Muslim. Today we are and we borrowed of that we are Muslim. Don't be back in 1991. We destroy the basic life. Up to now, we don't ready the government that use foreign forces to destroy, to silence
our people together need this other demon.